and the students from Nas'anot. I would like to thank the leader of the students, Abdirrahim Suleiman Farah. And I would like to thank the parents and the other students. I go to a secondary school and I am very sorry of the people that are running away from their country because of Somali deeds. I would like to thank lots of people like the wazirs and the president. I love Khartoum State of Somalia. It's a very good government. And philosophies, in the future will be the biggest government in Somalia. If we defeat Woodland and Somali Deed, we will be the best government in the universe. I would like to thank all parents and all other people in other countries that love Bilban Tech. I go to a secondary school and thank all the teachers and the principal, Sheikh Mukhtar, and all other people. Alaikum salam. Greeting all of you, and the best greeting of the Islam, that's a beautiful love for you. And Manta have فرحت نوع النوع أرتدي كسوق عتمتي بس ويجرو تيجا والكسر مقال من ثلاث أناد إن أنك قل تبنو إن برضو أمرك كوبان أن حلو كركي جوجوري أمهمي كوبان إياها إن أن قرنا امتحانات وسوق دياري مملو قبلت كيجا خاتم استدف سوماليا. هفسمية أما شيء فرحة يقول شرطو مركورا نوقو باللابني مركي دمبنا نوقو دماضي إن وحا مرة بعد فرحة نوعا إن أنا ما أنت تاقلنا يهولك وينايا أحمد قولي بلاسة أحمد قولي بلاسة أو أنا تاقلنا ما أنت قلت شبنت إيدا أما فرتانك إكسامنيشنك يولد إيدا خاتم استيدا في صوماليا إذا كذب waxaan si gaar ah waxaan badiyay gibi haanba bulshooyinka ama shacabweynaha reer cayn أولا أحييكم بتحية آتت من صميم فؤاد قلبي تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا تحية أحلى من العسل وأشد من الحبل وأثقل من الجبل ألا وهي سلام الله تعالى وبركاته. أما بعد markaan inta ka soo gudbo waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Khartoum anoo ka soo bilaabaya golaha madaxtooyada golaha wasiirada golaha deegaanka waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ururada bulshada iyo ururada bulshada anigoo ku daraya urur ka dhisan gobolka Sool oo ay ka joogan xubno ka tirsan ururkaas gobolada SSC meel kamida uu habeen ku dhaxo ama habeen ku nasto waxaynu leenahay ku nasan maysid hadaa hore ugu nasatayna annaga hadda ku soo jeesanay waxaynu ognahay waxa laalay wixii ka soo gaaray gobolka Sool oo aan kala hadlahay qof kasta uu dareensan yahay in maaragtay dhibaato aan la koobi karin ay ina ka soo gaaray gobolkaas waxaynu leenahay gobolkeena ilaahayna uu ina la qabanaya sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan sharafta badan leh ee lagu maamuusayo ardada reer Sool ee ka timi gumaystaha damiirkoodu iyo aqoontooda iyo caqligooda uu siiyay taaga ilaah rakibay aadan la abuuray ee dhobolaga iskumay ayaydeen xaawo u orida uga dhigay malaa'iga uume amni uga dhigay ayaydeen xaawo u orida uga dhigay ubad markay kala dhaleen galayo islaam ubad markay kala dhaleen galayo islaam markii uu ummad khayr leeyo inaga dhigay islaam urka
آمين مركي النبي الله واسكمي عليه الصلاة والسلام آمين مركي النبي الله واسكمي عفر مركو جيري ونور كصويفاي عفرتن مركو جيري دين تلو أخري يقرأ باسمي يري مالك انتوي bulshada kala duwan arday leh ururada dhalinyarada ururada haweenka culimada ganacsatada aad baan idin salaamaya waadna ku mahadsantihiin sida sharaf kale aad uga soo qayb gasheen martiqaadkii laydinka fidiyey inaad ka soo qayb gashaan munaasibadan aynu ku soo khatibayno imtixaankii secondaryga iyo intermediate-ka ee fasalka afraad iyo fasalka sideedaad ee dhalinyarada reer Khaatumo ee ka kala timid magaalooyin badan oo ka tirsan magaalooyinka Khaatumo iyo meelo ka mid ah Puntland iyo Somaliland waxaan mahad u soo jeedinayaa reer Cayn sida ay u soo dhaweeyeen isugu xilqaameen ardada ka kala timid meelaha aan magacaabay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan iyagana aan ku soo dhaweynayaa gobolka Cayn oo ku hadlaya afka maamulka Khaatumo dhalinyarada ka kala timid meelaha aan tilmaamay iyagoo yimid